Waa kuma Andrew Tate? I don't think there's any higher experience for men than sitting around with your boys having a laugh and having a joke. I think that's as good as that gets. You can have a billion. Andrew Tate wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka, wuxuu ku barbaaray England, wuxuu bilaabay xirfadda feerka intuu England joogay, wuxuuna ku guuleystay koob fara badan oo caalami ah. Kadib wuxuu u wareegay dalka Armenia. Ma ogtahay in Andrew Tate uu taageero madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ee Donald Trump? Andrew Tate wuxuu bilaabay inuu dhalinyarada ka waaniyo dhagarta dumarka isaga oo noqday xaliyaha caalamka. 2017 waxaa laga mamnuucay Twitter sababo la xiriira in uu aflagaadiyay dumarka. Markii dambena wuxuu bilaabay online marketing isaga oo sameeyay Hazela University laguna barto online lacag gaarayso ilaa $49. Andrew Tate wuxuu samaystay qaacido lagu magacaabo Matrix oo ah in aysan jirin waxbarasho, in aysan jirin shahaado, dhammaantoodna wuu beeniyay. 10 shirkadood ayuu ka maamulaa laptopkiisa iyo telefoonkiisa, wuxuuna ugu magac daray Imbraadoriyad. Ma ogtahay in ninka murqaha waaweyn walibana boxerka ah uu necab yahay in uu aado gymka, isagoo sheegay in gymku waqti fara badan dhumiyo, sidaas darteed uu qalabka jirdhiska guriga soo dhigtay. Andrew Tate wuxuu saayid u isticmaalaa qaxwaha isagoo maalinkii cabo 10 koob oo qaxwo ah, wuxuuna sheegay inuu energy uu ka helo si uu u shaqeeyo. Ma ogtahay in ninkan milyaneerka ah uu maalinkii hal mar wax cuno ama hal waqti isagoo isticmaalo soonka kala go'go'a ah. Bishii Agoosto sanadii 2022 waxaa laga mamnuucay Facebook, YouTube, Instagram iyo dhammaan platformyada kadib markii uu aflagaadeeyay feminist oo ah dumarka wax ka raadiyo. Tate iyo walaalkii ayaa lagu xiray dalka Armenia arrimo la xiriiro in dumarka uu ka ganacsado, markii dambana wax dambi ah waa lagu waayay. ugu dambeyntii Andrew Tate wuxuu qaatay diinta Islaamka oo uu sanado badan dhihi jiray waa diinta kaliya ay adduunkan ka jirta kuna hari doonta adduunka. I want to ask you now, because this is the hot topic, especially in the Muslim community, about your conversion. Yeah. So tell us the story, like what happened exactly. Well, I think a lot of people who've been following me for a while understand that I've been very respectful of Islam for a long time. Yeah, sure. I was born in a Christian country. I was raised as a Christian, and I've always been very respectful of Islam. And it's become more and more obvious to me and more pertinent that Islam is the last religion on the planet.